tagay sida uu inoo rajaxay culimadan ay inoo rajaxeen aad moodo inuu sawaabka u dhow yahay haduuba bil kulliya uga tagay waa maxay inuu gaalnimada u dhow yahay inuu gaalnimada u dhow yahay nusuusta markii la isku celceliyo marka waa arin khutuura qofka in islaamkiisa la isku haysto ma muslim ba ma sawa gaal uu waliba sida raali ku ahaado waa arin nasiib darro ama ayaan darad moodaa maqribki ma galin ما هو بسوء طيب طيب halkaasi baabkaas baa inooga soo dhamaaday waxaan raacinaynaa baabkan intaanan ka bixin umuur salaada dhexdeeda haddii lagu sameeyo aysan dhib yeelanaynin ama waxba u dhimaynin waxaa ka mid ah qofku hadduu ilmo yar oo kale xambaaro dhib ma lahan maxaa yeelay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaatay meelo badan bay uga sugnaatay isagoo xambaarsan umaama binti zaynab ibnatu abilcaas gabadhiisi zaynab ahayd gabaray dhashay oo umaama ayuu qaadi jiray marka uu marka sujuudayana waa dhigi jiray markuu istaagaya waa qaadi jiray tasawar marka meeqa xarako ama isbabedelitaan ama qaadis ama dhigid ayuu ilmaha yar sababaya salaadina kuma jabayso marka wax dhiba ma laha ilmaha yari haday salaada dhexdiisa lagu qaado waxaan dhib lahayn socodka yar oo kale waxba dhiba ma laha socodkaasi oo waliba wax maslaxa ama baahi ama duruuf keentay ay jirto waxa kamid ah sufuuftii oo kale in maxaa la yiraahdaa qof uu ka baxay in marka qofka saf kale ku jiro inuu dhowr jeer soo tilaabsado uu safkaas soo galo waxba mushkila ma laha maxaa ku tusinaya Aisha radiyallahu anha حديث أبي داود الترمذي soo saaray Sheikh Al-Albani xasanka uu ka dhigay waxay leedahay nabiga Nabi sallallahu alayhi wa sallam guriga ku jiro oo kor uga xiran gudaha uga xiran yahay hoos u ka soo xirtay markaasaan fastaftahtu baytiri waan garaacayo si liiga furo isagana markaa Nabi sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ku jiray salaad ayuu ku jiray famasha fafataha laha wa ufray Nabi sallallahu alayhi wa sallam intuu socday ayuu waa maxay albaabkii ka furay tasawwur marka qof salaad ku jiro oo socday hadana albaabka inta looga laga bixinayo ama la furayo kam xaraka ay noqon kartaa waa xadiis sugan oo waa maxay Nabi sallallahu alayhi wasallam ka asaxay iyaduna dhib malaha haday xaajo iyo duruuf keentay iyaduna salaadu kuma burayso cabadna ma ahan waxa kamid ah hadii qofku sidii hadaayataba meelaha qaarkood aan ku soo marnay daymoonshadii oo kale markuu ilmo yar ilaalinayo sidii oo kale ilmo yaro meel uga dhacaya ama wax xun ku dhex jira inuu soo jiido ama soo qabto ama gacanta ku soo celiyo ama u yara dhaqaaqo wax dhiba ma laha laakiin waxa baraarujin mudan xadiiskii hore intaanan ka bixin albaabka uu nabiga sallallahu alayhi wasallam jihada alqibla waa qiblada dhankeedu aha maaha qofka intuu qibladii ka tago inuu gadaal aado oo u dhaqaaqo halkaas oo dana fog soo qabsado wax u dhow oo qiblada xaggeeda xiga ayuu aha waa muhiim qodobka marka ilmaha yar celcelintiisu mushkila ma lahan xadiiskii waxa loo daliisanayaa Abi Burza al-Aslami radiyallahu anhu nin taabici baa ka sheekeynaya wuxuu leeyahay waxaan arkay nin tukanaya oo daabadiisii hashiisii oo hadba dhaqaaqayso oo meel aadayso hadba daaq raadsanayso oo isna uu la dhaqaaqaya markay socotaba hogaankii way leen haystaa waa ka daba dhaqaaqaya salaad buuna ku jiraa markaas waxaan iribiyo ninkani ku ahaa markaas ay igu dhahan buu yiri Abu Barza al-Aslami wa saxaabiga jaliilka radiyallahu anhu xadiiska Bukhari baa warinayay markaas uu weydiiyay markaas uu leeyahay u sheegaya inaysan waxan dhib ahayn ghazawaadkii nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu sidaa oo kale u sameyn jiray وهكذا marka xarakada qofku ama xoolihiisa ku ilaashanaya gaadiidkii dhamaa inuu ka tago oo maxaa la yiraahdo hadhow qofkii uu mashaqay dib la kulmo ama ilmihi yaraa uu ka halaagsamo ama wax ku dhaco inuu badbaadsado waxba dhiba ma lahan waxa la mid ah sidoo kale qofka salaada hormarayo kale in intaad u dhaqaaqdo aad iska celiso waa maxay waliba la yara dagaalanto hadii xataa uu dagaal hada feerama macnaha waa maxay xoog aad isticmaasho oo aad celiso oo ayaa la doonayaa iyaduna xarakaadka noocaasa iyo ficilka noocaasa waxba dhiba ma lahan waxa la mid ah nusuusta qaarkood waxa ku cad in xayawaanaadka qaarkood qofka isagoo salaada ku jiro in la dili karo sida nabiga uu amray sallallahu alayhi wasallam amara biqatl al-aswadayn al-hayyah wal-aqrab abaysada iyo maxaa la yiraahdaa bahalkan hangaralaha in la dilo ayuu amray kuwi kale waxa kamid ah al-fawasiq yuqtalna fi al-hill wal-haram وهكذا dilka noocaas oo kala qofku markuu wax dilayo kan bay ka qaadan kartaa inuu dilo
marka xarakaadka noocaas oo kale adiladaas ku wada sugan waxba dhiba ma laha waxa la mid ah waxyaalaha dhibka lahayn oo nusuusta ay tusisay ruuxa inuu qanjarufto ama qandhuufo waxa tiraahdaba qof hurdo kale oo markaas xaaje iyo baahi aad uga baahan tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ka sugan xadiis Aisha xadiiska saxiixinka ku jiray inuu markuu sujuudayo way huruday de gurigina ciriiri uu markaa ahaa markaasuu qandhufan jiray si ay lugaha u laabato markaasuu meesha ku sujuudi jiray intaas oo kalena waa maxay iyaduna waa soo aroortay waxa sidoo kale soo aroortay qofku candhuufta inuu maradiisa ama mandiilkiisa ama waa maxay dadka noocaas waxyaalaha baahida noocaas oo kale waxba mushkila ma laha waa tii xadiiskii uu ahaa qofku qibala wajhihi yusan u tufin dhanka qiblada laakiin ha u tufo bidixda ama lugihiisa hoostiisa marka tufida noocaas oo kale intuu hawlaha ku mashquulsan yahay waa maxay iyaduna adiladaas ku soo aroorto waxba dhiba ma laha sidoo kale hadii najaasaad qaarkood uu dareemo inuu sito ama kabiisa ha ahaado ama maryaha uu sito koofida iyo wax la siibi karo kale haday tahay inuu iska bixiyo iyadana waxba dhiba uma keenayso anagii hore u soo marnay waxa kamid ah dumarku markii ay baraarujinayaan shay ay baraarujinayaan salaada markay ku jiraan maxaa loo jideeyay tasfiiqa inay sacbeeyaan isla markaa ragguna maxaa loo jideeyay tasbiixda subhanallahi inay dhahaan waxa kamid ah qofku inuu gacanta ama madaxa uu wax ku ishaaro salaada isagoo ku jira hadii wax la weydiiyo oo wax dhici kara adillayna leedahay waxa kamid ah xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wa sallam imam muslim iyo qaarkood warinayaan wuxuu leeyahay Jaabir wuxuu ii diray nabiga xaajo reer bani Mustaliq ayuu ii diray markaasaan u imid isagoo tukanayo markaasaan damcay buu yiri ina wax u sheego fa ashara ilay markaas uu ishaaray bimaana iyo rasuul amal markaas wadana damc markale inuu u sheego markaas wadana uu ishaaray gacantiisa ishaarada marka gacanta waa maxay waa wax sugan sidoo kale Salama radiyallahu anha markii ay aragtay nabiga isagoo tukanaya salaad uu nahiyay بعد العصر إن تكدو أيوة نهي النبي صلى الله عليه وسلم مركز أركت إسقو تكنيو مركز waxay u dirtay jaariyad la joogtay u shaqay la joogtay ayay u dirtay waxa ku tiri u sheego waxa ku tiraahdaa salaadani waa salaadii aad nahiisay hadii marka uu ku ishaaro gacanta kugu ishaaray tiri isaga soo leexo ka soo tag sidii bay gabadhii samaysay waa u sheegtay waa la hadashay nabi sallallahu alayhi wasallam nabi allah salama waxay ku leedahay salaadani waa salaadii aad nahiisay markaas nabi sallallahu alayhi wasallam gacanta بمعنى وخري دب آدو قدال إجمر عمل أيو كلها اللي مركا وامحي وإشارة سيدو كلي عائشة رضي الله عنها مركي صلاة الكسوف لجري أي تمد إحدى الصحابيات بويديسي صلاة اللي تكري محيتاي مركا سي سماذا فرتا وقوي إشارتي أو تري بمعنى كسوف باردعي بمعنى وحور قلين واي وحكم إذا أن قفكو هدين للسلام يسوى صلاة كجرو عند أبي داود سيدا كو سقناتي إنه قعنت ساسليه كروه هدي للسلام لكن دان للسلامين إن معها ورديو النبي صلى الله عليه وسلم يسوى قبض جوبه وتكنيه أيا أنصار ويمادين فسلم عليه الأنصار ويسلامين مركزو قعنت أقو إشاري ومحي إشارة سوق الردية وحكم إذا وحيالها عندك لهين إن مصحفك سلادها السنة أهي إن مصحفك لقى أخريه اللي كده سيدا تراويح ده سيدا لقى سوري عائشة رضي الله عنها سيدا مصنف عبد الرزاق كسوغان إني كنت كنجرتي مصحفك كأخرين جرتي صلاة iyadoo Ramadan kala joogo inay musxafkaasi ku tukan jirtay marka qofka musxafka inuu ku tukado hadba rogrogo waxba mushkila ama dhiba malaha oo waxay leedahay adiladaasi waan sii wadi doonaa bacda salaah hada wallahu a'lam